صح. معي ومن عبد الخليل اسمه حسودي أنا وأنا إلا أيد الحمد لله رب العالمين إلهي ما هتسكلي من وحنا تاجنا جلاس مدة سكول قرط بريجا هنا مو هيسن وعقد وعام سوى واحنا سيرة غيرها هكسن ما يسن لكن سير الحمد لله رب العالمين وقت ده وعين وأنا نسيت تبغى بوقبا وحنا نسوي لنا معناته فما مركم من قاضي إن شاء الله الله كريم وحنا كم محل ما مكا معلمين تسوق كمان متكلم بسكول كي ولا نوع هجتنا يا دي فوارسية ولا نوع هجتنا طاقتها ولا نوع الشر إن شاء الله بإذن الله ما هي سنة ضيدة ولا بوجود تبعنا سلام كم سكول سيا بوجود تبعنا إمكو على سيا بوجود تبعنا تسوية جودي ممكن سكول كلية ضيدة بحسابه لأن تقول لي تنام قدير كوت ولا دسي سكول قات صوم مرتين فحنا مكو بعدين لقى دسوا طاقتها اللي جرها بيو بس سلا كلا سكول كوا. الله الرحمن الرحيم أنا أقدر فرحنا هاي معهم اليوم معلمين يا عرضيبة وخشدة ونوبي وسارت وحرشدة وقوريسة وسيرك وسارت وحرشدة آيات بلغو فرحنا هاي طلبات سكول كمحان كويرادة ساتوسير بانتا وين اسمها كسعودة إنتير كمان الله دي سيا وحنا نروش جايين محان وحنا في سكول كبيرين نروح قبنايا وذاك يسافر سيدا أنا كم حاكو رئيسني ما شاء الله محاكو يراهدا إنك سب محاكو رئيس راكتي أو شن سنة لحظة كهر أي هاي هذانا أرد لك نقف ديا مشيرو ما شاء الله أنت هرسنا وحن رجينا إن نورس من دونتو هدي لهاي هذا وأنا أقول ما حد نقينا مدحوينا جبرت سومالان يوسعر وحبرشة وسير كأجسمياشة قدومياشة قبلك سيا قروش لبلن نظيفتا حجر لعنتا إنه شقيان قرط سكول كحكي على محاكرة السوق سوريا شدين عصر أنكم وانا الهيبة هبين كده كسامل لك يوم حتى قون حصعد كابا إسكالها الباب ما يلهين ديركم يلك سو كدلولي واش ما ندى يعنك أنا جاي بملك يجيك وحن تاج هيك نوع هين وحبنا كسوق لسان إسكجا محاكرة هذا إيه أنا إسكجا علهين لكن ما شاء الله وحنا لا شيء ديرك نلا ما يسترايا ونو يلا يوم حنقول اللي بدأ الباب وولي جيبها قرون كان كبدا نلقى شرايو كباسكت كان نلقى شرايو ما شاء الله مكرشة في عمر قبنا ساعة وسير أنت عدينا ذيك هذا ما يصير دونا هذه أدبار يكون ما حد نقيا هرتواد مهد سنتين ما دام عضناتي معدن سكول كيو هاول كسرعته oo maanta maxay hayday gacanta lagu hayo waayo maxay hayday in badan buu iskuulkani nagu dayacnaa 10 sano in ka badan buu nagu dayacnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu u mahad celinaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaanu u mahad celinaynaa waayo la'aantiis waxba inoomay suuroobeen inoomanay hirgaleen intaa ka bacdi waxaan leeyahay iskuulku baahiyo badan buu qabaa hadday class tahay hadday albaab tahay hadday daaqa tahay deerka haddii naloo sameeyana baahiyo badan oo gaara ayuu qabaa dawladdu way ku mahadsantahay tagasbuug oo kale de waa laga daboolay ardayda maanta arday aan haysanin ma jiro maanta arday aan gurigoodii kala soo kala hayn ma jirto insha Allah horumarkuna waa da istaba socdaa maalin kaliya waxba lama wada qaban karo halkan waxaan ka salaamayaa kale dawladda hoose oo iyaduna imika hawsheeda gacanta nagula jirta oo maxay hayday nala wadaysa farxad bay runtii noo tahay weyn inaan idinku soo booqano maanta iskuulkan oo iskuulada ugu faca weyn kamid ah caasimadda isla markaana ugu kalaasida badan waxa dawladda hoose sanadkii hore dhameysay 24 iskuul oo kamid ah iskuulada ay la wareegtay ay wax ka qabatay sanadkan imika 3 bilood ku jirno 9 iskuul baa gacanta lagu haya kuwaatar baa sidaan wasaaradda siyaasadeeda ku wada socono 3 bilood kastaba iskuulo gaaroon wasaaradda ka tashano ayaa runtii dayactirkooga iyo wax qabadkooga tahay musqulaha dayactirka kalaasida furniture-ka oo iyagana wasaaradda si dhawaan uga wada shaqeyno marba qayb baan runtii wax laga qabtaa iskuulkeenani wuxuu ku jiraa iskuulada bisha soo socota ee April Ilaahay na gaarsiiyo ama kuwaatarka labaad ee sanadkan wax laga qaban doono dawladda oo gacan weyn ka geysan doonto ku jira aad baan ugu mahadnaqayaa runtii guddigayga fulinta ee ugu horeeyay maayar ku-xigeenka iyo xogeyaha dawladda hoose iyo bahda wasaaradda wasiirka dhiijiga hogaaminayaan labada gudoomiye ee gobolka iyo maamulayaasha iskuuladuna anigu aqaano mujaahidiin iyo macallimiinta oo runtii meel qarankan kaga suntan dawladdiina baa idin garab taagan idinka waxa la idin rabaa waa dadaal waxbarashadiina oo laabtaan aad baad u mahadsantiin horta waxa farxad weyn oo ah in maanta aanu idin hor dhimaadno annagoo shalay arday ahayn laakiin maanta mas'uuliyiina iyo idinkoo maanta ardaya oo mas'uuliyiintii Britoola ah annagu ka dawlad hoos ahaan oo agaasimaha iyagu barnaamijka sheegay iskuulkan maanta waxaanu kaga faanno wali maana samayn
laakiin wasiir haddii ilaahay idhaa sanadka bishaa bisheeda waxaan ku rajo weynahay wax badan oonu kaga faanna biyo dhacay in aanu samayn doonno haddii ilaahay idhaa subxaanahu wa tacaala waanu arkaynaa baahiyo badan inay noo muuqdaan waxaanu arkaynaa inay baahiyo badan inoo muuqdaan inta aad sheegteen iyo inta ka horeysaba oo waa ogtiinoo bacadlayaalba hor degan iskuulka hortiisii digniinaanu siin doonnaa haddii ilaahay idhaa garoommada iyo intaa aad wax sheegteen baanu ka qaban doonnaa haddii ilaahay idhaa xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay mudane muuse biixi cabdi waxay u tafaxaydatay in ay dalka iyo dadkaba la horumariyo horumarkuna wuxuu ka bilaabmaa ardayga waa ubaxa waa mustaqbalka beritoole waxaad tihiin mas-uuliyiintii beritoole sidaa kalaaska ku tihiin unbaa halkaana ku ahaanaysaan waxaan idinka codsanayaa inaad kaga tagtaan edaab fara badan inaad kaga tagtaan isjeclaysi fara badan aydhkaa waxaa eeganaya sabanada waxaa eeganaya sigisyada maanta markuu qofku aydhka yahay waa madaxii iskuulka waa sidan hadhowna waxaad tegaysaa meel aad adigu uula noqonayso foowan markaad tahay waxaa keliya waxaan doonayaa inaan ku daro markii dhaweydeen idweydiin muxuu iskuulkiinu kaga wanaagsan iskuullada kale horta waa sheegteen waxaad tidhi buwaag baanu haysanaa inkastay jiraan iskuulla somalilan ku yaalla oo dee buwaagtaan fursad u helin laakiin ay tahay inaanu gaadhsiina annagu laakiin waxyaabaha uu kaga wanaagsan waxaa ka mid ah iskuullada adduunyada waxay ku faanaan ciddii ka baxday iskuulkayga waxaa ka baxay hebel hebel heblaaye hebel marka iskuulkiina waxaa ka baxay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan weliba fasalka ayuu ku galay baa laygu yidhi imtixaankii waxaa ka baxday fanaanadii caanka ahayd khadra daahir cige waxaa ka baxay maxamed xaashi dhabac gaariye haddii la tiriyo maamulihiinaa ka baxay maayarka caasimaddaa ka baxay bowlidkeena iga dubaya laftigiisaa ka baxay markaa waxaan filayaa dee idinkana waxaa idinku jira qaar madaxweyneyaal noqonaya qaar sidaasoo kale noqonaya abwaaniin maayaro markaa horta fursaddaasaa haysataan iskuul dawladeedna waa dhigaysa waxaan idin sheegayaa iskuullada dawladdu inay ka tayo fiican yihiin mooyaane kama tayo xumaa iyaan warkaa laydin sheegin markuu qof ganacsadii ama qof dan kale markuu yar doonayo inuu dadka soo yar dhiirigeliyo ruumarka dee iska hubso mutacallim baa tahay intaasoo dhan 8 sanaad soo dhigaysa soo maaha waxaan dee suuqa laga yar sheekayo haddaan sidiisa waxa soo xambaarto siduu ku ogaaday qof kale iskuulladaasaa ka tayo fiican dee tayada waa inaa wax ku cabira soo maaha maxaa lagu cabiri karaa imtixaanka imisay keeneen average-koodii dee mediumkii ama celcelisaan sam isku mid bay ahaayeen maxaa kaloo lagu cabiri karaa tayada inta kalaaska fadhida kalaaskiiba imisa arday baa fadhiya dee kuwa privateka waxa fadhiyay inta kalaaskiinan fadhida in ka badan laakiin kuwa dawladdana way jiraan qaar iyaguna buux dhaafay markaa iskuulladeena waa isku mid waxaa somalilan aad arkaysaane ganacsada iyo madaxna iskuul dawladeed buu ka baxo publica kuwa privateka waxaad tidhahdaan hadday raakana naga fiican marka la arko iskuul private oo madaxweyne ka soo baxay ama wasiir ka soo baxay ama nin taajiro ganacsadeena uu ka soo baxay ama sheekh quraanka si fiican u yaqaano diinta uu ka soo baxay markaasaan aqoonsanaynaa inaan naga tayo fiicantiin laakiin imika intaasoo dhan aad oo haysta ayaan lagu sheegin keliya laakiin waxa muhiim ah in aan iskuul iyo la isugu faanina qof baa loo tartamaya soo maaha wixii adigu aad kaysatay u baad leedahay ama iskuul private ah hadaad iskuulada private-kuna waa iskuuladeennii wasaaradda waxbarashada aniga wasiir u wadaa agaasimaha guud baa agaasimo guud u wadaa sidaa aanu lexjecladu nooga hayso kuwa dawladda ayay kuwa gaarka loo leeyana nooga haysata waayo arday somalilandna dhigata qaar namana kala xigaan aniga carruurtayda iskuul publicana way dhigtaan jaamacadda kuwa privatena way dhigtaan marka carruurtayda miyay kala xigaan carruurta somaliland oo dhamina waa carruurtaydii kuwana waa inamadaydii kuwana waa hablahayga marka haddee iskuulladeeni weeye dhammaanteen laakiin tartan qof walba waxaad ku talagelaysaa qalikaaga iyo dadaalkaaga qishkana inaga ilaaliya lacag xaaraan miyaad doonaysaa inaad cunto shahaado xaaraan oo qish ku heshata qaadata ka waran daana ka darayn weliba lacagta marun ba iska yar dhammaanaysaa shahaadada waa isdaba sidaysaa waana kula noolaanaysaa marka waxaan iskaga tegayaa qof walooba waxaad isku daydaa somaliland inaad wanka u gasho
markaa adeer xilli dambe aynu ku jirnaa waxaynu isku ognay maxay dadaal iyo alla ka cabsi keliya waxaan isku dardaarmayaa weydinkii yidhi waxaan u baahanay suuliyadii naloo dayactiro gidaarkiina waxaa nalaga qabtaa taana wasaaradda ballan qaadaysa waanu samaynaynaa madaxdii wasaaradduna waa ku la socdaa sida ugu dhaqsaha badan baan bilaabnay laakiin idinkan maxaa laydinka rabaa dee maxaad umalanaysaa laydinka rabo lacagtana wax ku samaynaya xaggee ka keenayaa xaggee ka keenaya umalaysaan cashuurta dee soo maaha cashuurta suuqa laga dukaamada waalidkiina haddaba waxaad tidhahdaa marka maanta noqotaan borobartigii tagsigii ay dawladda hoose qaadan jirtay guryaha laga qaadi jiray miyaad bixisay meherad haddaad leediina waxaad tidhahdaa ciddii meheradda cashuurta qaadanaysa miyaad haddaad gaadhi wato waalidkaana waxaad tidhahdaa liisankii iyo cashuurtaadu de haddii kale waxay noqonaysaa annagu waan iska qarsanana wax ayage idinku naga dayactira aad baan idin salaamaya adeer salaam